بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحن روحنا لنا زوم دوبو زوم كان بحكيس كسميليا soft4forex simulation كاس حوي سوقي وان soo jaranaya 2019 2020 2021 bisha Ramadan garo kadibna suuqii oo ii furan ayaa waxa ka dhaxaysanaya deemadaasaan korinaya waxaan iska ilaalinayaa 5% inaan lose gareeyo daily waxaan target ka dhiganayaa maalintii 1% 2% wixii la haysiyo just waxaan ka soo qaaday in la ii dhiibay $10,000 ama $100,000 ama $500,000 everything waxaan rabta ka dhigo in macnaha account aad meeshan ka dhaxaysid halkii aad suuqa caadiga aad sugi lahayd in uu daily u xirmo ama daily target aad sugi lahayd halkan suuqii candlekii oo kale waad yara dheereynaysaa waa soo gaabsan kartaa real time ba ka dhiganaysaa real time times 2 real time times 3 ama aan ka wadaa 30 minute candle oo kale marka real time ka dhigtid wuxuu kugu soconayaa sida real time suuqii caadiga ah marka aad taadniyo oo ku yara daaliya 30 minute ma wada sugi karo maadaama practicing wado waxaan ka dhiganayaa times 2 washington daqiiqo inuu igu soo xidho 30 minute times 4 times 5 times 10 times 10 hada dhahay 30 minute candle kasta wuxuu kugu soo xidho $1 marka bal isbeeshu wixii hay iyo soft4forex ka shaqeynayno maanta marka backtesting barnaamijteeno waxaan dhahayaa new simulation halkan waxaan dooranayaa beerkii aan ku anigu JPY iyo gold labada beer baa backtesting ku sameeyaa bitcoin iyo USD iyo JPUSD dhowr iska soo darsaday marka gold baan doorsay wuxuu dhahayaa waqtigii dooro simulation goor baan rabtaa in laga bilaabo let's go to waxaan aadayaa madaxnaa July iska bishii hore bishii toddobaad waxaa ka bilaabayaa maalin khamiis ah 1 July ka bilaabay akoonkaygu waa dollar lacagta ku jirta $10,000 xilliga waqtiga waa GMT xilliga ingiriiska buu candlesku ii sheegayaan marka xilliga ingiriiska inagu 3 saacadood ka horna +3 weyn dhahaynaa saan koytonka ingiriiska hadduu marayo inaga waxa weeye koytonka 21 inoo maraysa buurno 3 saacadood ku dhahaynaa rewardingka waa ka qaadana rewardingka saxdan ka qaadana sababtoo ah rewarding waxa weeye in candlekii aad dib celin kartid mar hadda candleka dib celin kartid inta dib ceshitid bateer galaysaa oo ku soconaya waa cheat waa qishway marka maadaama backtesting adiga rabtid adigu aad naftaada taabinaysid ma qurux badna big size-ku waa lot size-ku waxa ka bedeli leverage-kana waxaan ka dhiganaa 1 to 200 ama 1 to 100 ka soo deynaya maadaama akoonnada badankooda FTM funding forex funding fear funding challenge all ay yihiin 100 gold wala wada 100 lacag kala 100 marka spiritiga waxaan ka dhiganayaa 2 bib macnaheedu waa 20 points oo xisaabinaya okay commission berad waa ka saaraya chart history-ga maalmood ama 10 maalmood dib igu dhacay ana history-ga maalmaha suuqa laga soo saaraan waxaan qabsanay bishii toddobaad koodeedii suuqa maalin khamiis in akoon from $10,000 dib wuxuu chartkan waxaan arki karnaa kunkii maalmood ee ka horreeyay in history-gooda arki karnaa ku laaban karnaa ka soo aan iskarin karnaa intaas loo baahan laakiin just for inaynu direction bias kana soo eegno okay halkan waxaan dhahayaa time frame-dan ku tiragalayaa ku soo daraya 15 minute time frame oo ku tiragalayaa 15 minutes waxaan ku tiragalayaa marka 30 minutes aan trade ku qaato 15 minutes waa ku manage garaynaya 30 minutes aan ku darayaa meesha aan trade ka qaadanaya always marka 15 ka qaato way jirtaa 5 minutes oo baahan iminka 5 minutes waa week confirmation candle and week confirmation time frame waa bembering naas leeyahay rejection ugu beema asleeyahay ugu gudmayna waa correct garanay okay let's go to 4 hour chart ku soo daray macnaha chart kastan ku tira garanayo baan u baahnahay oo markaan 30 minutes ka qaadanayo inaan 4 hour-kii 1 hour-kii daily weekly all ay jahadi aan rabay iga saxan haddii aad 1 hour ku tira garaysid oo aadan 4 hour-ka iyo daily-ga iyo soo eegin waa ku jawsa waxaad arkaysaa meel rejection adoo self ka yiri rejection 4 hour-ka ku adigoo self waxa soo dhan baad iska ilaalin doonta okay open baan dhahay 15 minutes ku furaya
wuxuu dhigayaa desktopka 30 minutes 1 hour 4 hour daily iyo inta markaan doctors baan dhahay intaan horta halkan waxba ka qaban hoos baan iska geeyay waxaan dhahayaa mid kasta hay u soo dartaa template-kii template-ku hadda suuq yahay waxa contract waa bars waxa ka dhigan kartaa halkan candle template candle la ka dhigan kartaa marka candle haddaan ka dhignay kale waa in template ku save garaysan jirto template haddaan ku save garaysnayn maybe ana template-kiga ku share garayn kara ama haddii aad soo dhigatay waad garanaysaa sida template loo samaysto candle inta ka dhigatay suuqa baad xasaan blue waxay property adaa beddelaya wax kasta adiga hagaagsan karaya okay digison ku soconayaa it's okay waxaan tegayaa 30 minutes-ka waxaan ka dhiganayaa template-kii aan kusoo darayaa waan diyaarsado marka dhacaan ku siinayaa interman dhahayaa okay haddana waxaan dhahayaa scale fix waxa weeye inaan suuqii koriga hoos ka xin karo halkan deegan 30 view oo kale 30 minutes-kan sida scale fixi property scale fix oo sax saarta okay waa dhahaysa property scale fix sax saar okay dee waxaan rabaa inaan suuqa saan rabo aan ujeedin karo projection-ka arki karo contribution-ka iska eegi karo clean candles-ka ku xisaabtami karo everything aan samayn karo okay waxaan u baahnaa marka inuu xilligan tirigareynaa warqadda xagga dambe dhabarkeeda ku dhigto waxay sheegtaa xilliyada tirigareeya anigu maalinta aan badan horta xirtay labada duurnimo suuqa marka inaga inoo tahay ilaa iyo 3 barka galabnimo ama 4 galabnimo labada iyo 3 laba saacadood tirigareeya but sometimes 4:30 waxaa jira mar suuq ranch inuu ku jiro New York stock exchange open isugu bas inta xilligan tirigareeya waxa weeye labadu waa beri New York beri NY way waa too much for you saddexdan New York waa furmaya xilli volume iyaduna leh haddii labadaas ay volume yeelan waaye xilligaas ay volume kale waxa weeye 4 galabnimo uu furmayo ilaa 4 marka uu furmayo stock exchange halka waxaan ka dhiganayaa visual mode oo waxa weeye halkii instead aan markaan saaran buy dhaho SL-ka halka ay dhigtay B-ga halka ay dhihi lahaa waxaan dhahayaa visual mode oo wuxuu geynayaa xariiq haddaan doono visual mode iska deynaya daaqada iyo news-ka kasii maanta news ma jiraan okay mid baa hadda iga internet-ka malaha iga daciif news-ka waxaan rabay daaqada news-ka inay soo kacdo oo ay ii sheegto salaha kooda bisha maxaa dhacay labada bisha maxaa dhacay saddex bisha everything ay ugu sheegto marka hadda I don't know waxa ka khaldan news saarso mar ay soo saarso insha Allah marka news-ka waxay noognahay badanaa bisha bilowgeeda news-ka ka badan laakiin inagu bal we'll take a look halka trade-ka ii furan ee trade-ka history-giisa wuxuu sameeyaa trade-ka waxaas oo dhan baan ka eeganaya waa ka analyze garaynayaa halkan chart haddaan 5 minutes oo kale u baahdo kusoo darsanaya ama monthly oo kale sessions-ka halka xilligan aan joogno 12 habeenimo marka 12 habeenimo ma tiri garayno waxaan imananaa New York wuxuu u furmayaa simulation-kan 12 marka GMT English marka 12 imanaya 12 inaga maxay noo tahay waa labadii duhurnimo 12 marka iyaga u tahay noo tahay 3 galabnimo 14 maxay noo tahay 4 galabnimo marka aynu saasan ku wada 4 galabnimo waxaan sameynaa inaynu bal haddii eeba ka dhigo aynu 3 saacadood 12 iyo 12 3 saacadood tartan eeganayno marka waxaa tagaya halkan iska dheeranaya 1 hour kan tagaya xilligii 14 lodkayga halkan au tartan ka qaaday la iska hagaajin doona analysis-ka bilaabay waxay u jeednaa weekly-gani in uu drop xooga soo galay kadibna wuxuu yimi support-ga this week maanta waa khamiis kowdii bisha waa khamiis halkan ay kowdii bisha 7 joognaa maalin khamiisa 12 oo loo doorno inuu ku dhigato okay khamiis bay weekly wuxuu sameeyey lowgii jibiyey wuu reject garay straight
okay bias kana weekly marka waa maxay dhahay bias kana weekly waxa way maadaama maanta khamiis ay hadhay iyo jumcada weekly in isku hayga jabi kadib tin candles ka ugu socdo daily tegin bias wal soo eegtaa bias ka isu ka keenan ba qorxada daily marka inta waxaan joognaa yesterday haygeedii in sabi lowgeedii la respect garay halka hadii eegno shalay daily shalay halka lowgii waa lowgii maanta khamiis ah bishii toddobaadkii joogna haygina waa ka lowgii hore ee maalintii ka horeysay ee arbacada oo ay soddonkii bishii ka horeysay lixaad waa la respect garay lama jebin haygina waa la jebin marka maxaa mid ah in train yar oo ka bilaabmayo high iyo low high uu samaysmayo oo kan dadka xiga saameyn doona lowga respect garay hayga jebin doona wixii ustaas kala sameyn doona lowga gareyn doona hayga jebin doona ilaa ay tin candles ka laftiga ama rejection ka la gaaro this area of rejection okay waxayna daily saafsanaya laakiin meel sahlan ma marayo for our intagina let's go for our أنا أفكر حرام أن تكون $10 وهي كسر هذا challenge وهي 8% في درجة 10% بس أنا بس أنت عشان وقالت okay for our كإستغنى ودوتير وهي no volume 1 hour ك 1 hour no عند الطب حلمي كان تكون دورنا إنك كان أفضل من الله لكن أنت راح كمان سمين أنا كريال تايم كده السوق هاي سؤال ريال تايم ده سوق سيدا أنا هستن السوق ما كان صوت قلبي سوق يا سوق أنا لسه كمان عم بلعب سوق هاي رمو بود يوكا بود سيرا بلعب ساعات وأنا أكمل راح نعرفين إن مسؤول أي حول بدي مسؤول مسكين من ما تسوق هل كهدي لسوق كبير سلكنا كأيان أو نورزون كان دي لكبيرنا maybe باين كأياننا لكن كان مثل كبير أي كان ممكن هيك تقول 78 ممكن تقول سوشن أوريو هكذا وإنسى واشنبو وهي نوابي كريستيان أصلا بيقول لكن لا تشنب بملها على ذلك مركا we will see what happens 30 minutes كنتينا 30 minutes كو بس 1 hour أو كارنت بنسيون بنسينا هل كده إحنا جبنا إن rejection بدن all of this is a طيب ما راح هل كده على سيري ما في شيء ولا كده يدوسك والله يمكن كان حساس عارفه يستارون نيس وحيل السوق عادي أو نيس كيف وناكي أقرأني واحد خلنا ترين كم شيء لو هاي تبص عنا يا لو هاي لو هاي خلاص بس عنا يا ترين فول أدميسترن مركا إننا نحن نجينا بالباي من إيجنا مركا كان كذا فما يوكادي دلويس شوي عنا يصير فيها ترين 1 minute كوريب صار عنا مركا أروح حسين كرتا أدي حاجة سجيدة كوبنا أنت سجيدي هاي مس حديقة أو تشكر بيجوتي وشفتين بدي شفتين ده لابد كدي مركب مرة ترى إحنا لابد وفي التنقية السوق عنا ترى كم كي تنقيشن دقيقة لح دقيقة فرميس وكاو صارت لح دقيقة في صارت كري كان دكتوري نود أدطبق حلم هالكم لو protection area that's why we should gain your silk weave and then since you carry work there in the catalog and is على خلاف دي كذا انت تاعي كذا يرين كذا بدين كذا كان اوكي حاول نتحنين على هذا التفكير حلي اللي تيجي اين هذا كوسيس اينو وان نيويورك اوبن تمكن بلون منها سيشن كانت كويتون كوي ثم أرجع كويتون كوا أوكي نيجي بحكي على أفرت كذا كان على أفرت كذا كان أولي يوم أبين ديلي كسوة إلنا ديلي وابلش ورا وقحيل وتشيني وأنا وقحيل وتشيني تيجي من تواجهني مرة هالكا محل جلي أباي فإذا كرزوني بدن
kuma qabo sababtoo ah istiraatiijiyadeedii ama ruulkii aan tareerka kalsoonida u weyn ku qaadan jiray waxa ay aan uga baqayaa rejectionska laftiga ah marka asarka waxaan dhigayaa 1775 750 17 75 1775 570.2 570 TB-gana waxa way gacanteeda ku kantaroolana bay baan alaasaan bay kawey aqal SL induce intaas SL price inaan ka dhigo laakiin mid bal halkan aan ka hagaagsan karaa trade-kayga waxaan dhigi karaa trade hadda $5 balaaska igu haya waxaan dhahayaa modify markaan dhaho SL inaan ku xiro waxaasi let's go down SL so ka qaad commission key break-even key 20 very to solos modify idagay iskruwa accept maxaa accept garayaa dee waxa iman sinay move line and chart to modify this order laakiin dib ma lagu eeganaa bal hadduu 10 big oo mails aynu ku qabto oo 1% ah iska xirna SL inama yaalo oo SL-ka markii halka ay wuxuu ii sidan ay ahayd intee big baa rabtaa entryga inaad SL ka dhigtid waxay ahayd inaan dhaho oo kale halkan ka galay intaan ogolahay 30 bips wey range aad u weyn 30 bip inaan ku qoray 300 points kadib hadda waxaan ku qoray laakiin 170 meesha SL-kaga dhigan meesha dhigaysa daliiliga hore hoostiis 170 bip oo mains weydii waa 1700 laakiin waa iska maanti karaynaya servicekii gocoli kan kaas aniga meesha ku xirmo aad u soo gelay strong rejection high jabiyey eeg waxaan sameynay this time jabiyey in the light binary rejection kaas marka rejectionkii aan ka walbsanaan kaba qaybin kasoo horjegta garay straight down kadibna lowgiisii jabiyey 4 hour-kan hadda xidmi doonaa marka laba mid inaynu sameyno innaga u door leh in aynu nidhaahno trade-kan ii socda 150 xid waayo hadduu 200 oo minutes igu haayo muxuu ahaaye maximum daily loss-keyduna uu yahay 5% waxaan sugayaa min SL-ka saa usoo qaad baka SL-ka waxaan keenay 4 hour lowgii hore aan geeyey 4 hour lowgiisa oo $200 ah okay bas ka sideenya tirimidkayga santiga 4 hour ka saxay okay waxaan iri 4 hour-kani waa xirmada resiini entry meeshaan ka galay yeeshaan ka baxay 4 hour aniga trade ka qaatay saas oo xirmada loojigaas ma halkaasaan bay ka galay fiiqa ay ugu soo noqday partial waniga halkaa ku xidhay calaamada ay rida this 4 hour waxaan rabaa inuu lowga respect garayo oo waxayga jirin marka let's see what happens para ocasionar a opção serviço que essa foi a maxaa khasaaray 3.8 minus 7 ku jira total saddex waxaan hal baynu sameynay 30 kadib ay dhiganaba SL-ka inooga dhacay marka waxaan dhahaynaa waa maxay problem dhibta hadda halka ana ka heshay waxaynu khasaaray reerka aynu halkaa ka galnay SL-kiisu wuxuu noo ahaa disay
marka uu bearish ku xidhmay 50% inay xidhna bay ahayd lowgaa markuu jabiyaan 50% salkan aynu halkaa geynay inaynu ka dayno laskayna salkan halkaa geynay bay ahayd lasii waynu soo kaban doonaa it doesn't matter marka waxaan samaynayaa maanta maadaama 3% khasaaray faraha ka qaadaya suuqa samaynayaa next day baan tegaya maalintii xigta halkaa waxaan ka eeganayaa cointonka markay tahay waan eeganayaa 11 markay tahay okay first analysis waan sameynaya waxaan dhahayaa dailygan wickiskan uu jabisanayaa uu soconaya laakiin this a problematic area this area oo iska dhan waa problematic oo area aada u howl badan marka innaga tradekeenu wuxuu ka dhacayaa areadan dusheeda oo waayo sababto ah waxaweye halkan oo dhan dee waa clean ilaa sectionkaas waa clean okay daily waa bullish weekly waa bullish wakaa eeg weekly rotationkii soo qabsaday maanta Friday haygaas fiinaya laakiin saan ognahay Friday-ga maalinta u horeysa jimcada bisha jimcada u horeysa waxaa soo baxa CPI CPI miyuu ahaa maybe so NFP soo baxay NFP marka maybe maanta hadduu suuqaas ranking ku jira cabaar in NFP waxaa la sugayo news la sugayo website trade basha hagarlaaweacademy oo halkaasoo naga saaray howgaas baynu ka soo ceshay halkaa isalka keenahayna waxay ahaan la yaali intaasoo dhan waxaan karayno dibidii meelaha rabna waa tegay we don't care yesterday okay hadda sidee baynu u manage karaynaa wax negative resistance work 1789 1785 afartan marka u dhexeeya meesha ku sii xigtaa waa 1794 والملح structure يعني مع صدح الحقيقة وضع عندنا okay let's go down 15 minutes 15 minutes down to 1789 بندش هذا بايك يعني retest area kusamee retest fiican hadduu retest soo sameeyo kadibna uu hagaajiyo we are good to go I think everything's weynaa everything's in xirmada sugna Simulationkan heli karnaa xirada ranking galo news baa jira NFP ama newski weynaa aynu sheegnay NFPs NFP baa jira laga iyo barka soo baxaa ama saddex iyo barka markay tahay galowda news baa jira 5 second buu intaa dhacay 5 second daaqada newska hagaago 6 seconds wuxuu dhacay 5 news hourkaas oo iska dhameynaya news hourkaas iga dhamaado qaarka deni meesha aragna waa tagtay saddex tan baa la tegey oo aadogay okay
halkaas waxaan uga qaadanayaa visual mode baan dhahayaa ruuxiga waxaan ka dhigayaa 1.5 ability application soo samey let's see what happens. Heerkan hadda wuxuu inoo hayaa heerisaan tegayaa labaduba maytaysan ku furay $500 wax ku dhow ii hayaa waxaan sameynaya waxaa xirayaa 70% xiraya 0.45 laba iyo ordaya break even baan dhahayaa break even ka dhig bibigana ka qaad meesha aniga xirnay okay we are profit in ku jirnaa weynayna baltaraas inta inoo socdo weligaa marka aad soo gaadhid sabortid halkan oo kale marka aad soo gaadhid tareebkaaga ama maareedkaaga soo xiro halkan 34 views markii ii marayay waa aniga xidhay qaybtii aan SLka entryga dhigayna okay ga saaray marka laabudun bay ahayd inuu halka kala fikiray inuu maadaama bahalka oo news uu jiro inuu toos sii socdo marka xataa hadduu soo reject garayna $100 ee socda 0.45 lotka habaato haddii uu toos u socdana waxa weeye ilaa 100 biyo kala u socdo marka maanta waxaynu ku jirnaa weli meeshan ku jirnaa oo 0.58 minutes ku jirnaa ama $8 haddii historygeena eegno haddaynu eegno kala bixino tareerkan waxaan ku khasaarnay $120 meelsan galay kana waxaan galay $248 meelsan tareerku horreeyay maalintii khamiista oo konton big iyo 40 big in khasaar maanta waxaynu qaadanay 30 biyo faa'iido $193 marka net minus waxaan ku jirnaa marka labada la kala jaro $58 oo 78 okay waxaan waynayaa tareer kale xilligan laba si eegan karo way dhacday okay waxaan ka yahay maalintii xigtay ahayd Monday-ga mintaan tagayaa maalinta saddexaad baan kala garaynaya waxaan ku jiraa 0.5% okay halkaa rejection baa ka jira xoogan ilaa iyadu waxayga iyagu kaloo updatay daily aan tagayaa daily oo jeedaa hayga soo jebiyey wikiskii uu tegayaa meesha aragnayn inaynu tareer ka qaadano oo wikiskan dushooda ah tareerkana quruxda halkaas ka dhici doona umaynaya 4 hourka ujeedaa afkan haygii soo jabsaday uu sii socdo haddii 4 hourkan halkan jabsado I think markaynu lefta eegno markaynu aadno clean move ilaa iyo kor almost imisa halkaa markaynu ka qaadano saa weekend 20 big kadibna ilaa halkan 160 big markaynu arki doonaa 160 big inuu maanta isniin ah oo wiigga bilowgiisa ina siiyo waa maalin Monday ah 5 bisha 7 iyo inuu bari oo talaada ay siiyo markuu move clean ah kor aado ama hoos aado always move ka kale ay meesha ka dhici doona waa clean candle clean markii kor aadaan candle clean ayaguna hoos aado suuq weydiisu u socdaa high low u socdaa suuq kor intuu isaga socdo haweeney impulsive ku jira mid impulsive correction impulsive markasta oo suuqa left hand side uu clean candles yahay waxay probability in kan kor aadaya ama hoos aadaya clean candles okay at the same time selkeenu waa inay noo diyaarsan tahay sel waxaan ka qaadanayaa areadan hoosteeda this area 1789.7 kaloo waxa weeye inaan macnaha dhow 1 hour oo kale area ku arko waa area valid ah macquul ah this 1 hour bas weeye intuu xirmayo 30 minutes hadduu toos uga dhex baxo waxba ma iga gelin
laakiin managementkaasi ay momentumkan waa bullish 4 hour candle-kan bearish buu ku xirmay 4 hour candle-kan hadda furmayna kor u socdaa laba mid way 4 hour candle-kan inuu yahay retest oo this area uu retest garaynayo ama inuu rejection yahay oo 1794 uu kasoo reject garay waa labada waxaa loo kala garan haddii 4 hour kan hadda socdo oo wick up sameeyo kadibna looga jiriyo ilaa supportiga kala socdo waa rejection meeshaas haddii 4 hour candle-kan looga respect gareeyo 1789 yaalla oo 1794 jabsado oo high u socdo kaas waxaan dhihi karnaa waa retest marka retest waa retest marka uu waxa weeye retest yahay retest uu noqdo oo retestiga aynu aragno rejection waa rejection kolkan rejection ka arag marka we will see waxa dhaca qoraalka xamuudaa in uu rabo inuu sel soo aado inaga tracking loo meelood keenayaan 1794 korkeeda bay ka heleen ama selka waxaan ka qaadanaa 1789 weliba halka markaan ka qaadano wickeskan hoosta 1788 700 waxayna jira leyton partition ma jira rejection kala TDBs marka leyton markaan marano ma garaan atrackeena TDBs kana fasting udeenna intay ordaysa rabnaa ilaa TDBs la soo am ka soo reject garay adii ku taal branching mark side by side we can lose there's no volume Monday maybe just eegayna hada doona inaga oo suuqi ka baxnay maanta way iska ilaashaan okay xilligan waa dhamaaday 5 ku marasaa waa afri waxaan lahaynaa kootonka 12 iyo 13 afri tonka ku gashanay okay waxaan dhahayaa 4 hour battery 4 hour samaha waa yara iska yara weynaya caadi aan ka dhigayaa possible okay waxaan sugayaa 4 hour inuu area ay jirto iska baxsanaya waxaan ka dhigayaa in tusaale ahaan aan ka baxay suuqi habeenimada eeganaya okay 4 hour candle-kan waa labadii habeenimo inaga inoo tahay 5 subaxnimo salaad waxa usoo kacday aragtay gold oo halka maray marka sessionka eegtay waa xilliga waa Asian session waa Sydney iyo Tokyo from xilliyadan waxaan naqaanaa in gold dhaca marka lotkan iska yareynaya ayaa lodka aadiga yare 0.2 ka dhiganaya halkaas aan ka dhahayaa hadaan ka buy dihin daily-ga waa bullish weekly waa bullish 1 hour waa bullish okay halkaas aan ka dhahayaa buy baan ka iri all these candles left-ga in la iibiyo baa waa imsa 262 one day may adag tahay in wada helo lowgan waxaan dhiganayaa SL ma soo yiri jiibiyada waa 54 bib ilaa halkan keenaya 60 bib baan keenaya 1789 baan dhigay SL-kayga waana 60 bib oo meynaysa ama 607 points marka bib markaynu xisaabinayno goldiga waa labada hore 60 bib way 0.5 markuu dhufano waa $334 bay halka dhignay oo loo iskareeyna haddii faa'iidana waxaan rabaa in 260 ka bib aynu wax ka helo 1400 markuu afar boqol oo socdo 700 ku barafida ku wada 400 meelaha ma ku wado khasab waxa si fiirgareynaysa si uu ognahay in suuqu sameyn doona most of the time this area hadda retesting ku sameeyay forward in shirka shirkadna waxa retesting ku sameeyay continuation ina wali halka meelaha bayda ka soo eegana way laakiin dibna zone ba ka horeeyay marka meesha aan galay bayda ka galay zone ba this zone zoonka marka la dhacaysa inuu suuqu toos uga horba uga dhex baxo oo ilaa 100 socod kadibna uu ku soo sameeyo waxa la dhahaa retest kadibna uu soo socdo ilaa targetka naasoo iyo may inuu intuu yar la soo reject gareeyo uu soo reject gareeyo 1 hour ka maamulayna oo trade stable ay muskaga manage gareynayna okay 1 hour ka hadda jooga waxaan dhahayaa 1 hour loo yidhno باي شغل وصلت ورا في سدحي إن سدحنا في اللحية وإحنا نمرين أوكي another 1 hour بقى لحية وإحنا نسكت ويستيش شغل في سرنا في حوار ساعة تدور مركز بسوق صوب فلست سلا سواها نوتي وكحنا كي تدور this 1 hour
1 hour ka entry ka qaatay waa 5 kana waa 1 hour kii doji ku xidhay kan waa awkii 7 waxaad aragtay in entryga laga kor joogo laga koreeyo waxba isla entry kaniga meeyna waayo waxa laga yaabaa inuu retest ku sameeyo kadib sida ku soo retest intuu sameeyo contribution soo ku soo marka mar rabno in la ka saaro marka waqtiga quruxda uu yahay waayo all the way left waxay noo jeednaa clean candles dadka kaliya rabana account ku baasiyo hadii noo soo tooyso marka candle-kan hadda ku soo waa candle-kii 7 subaxnimo waxa tiribay waa suuqa ka soo kala wareegaya ama waxaan akhrisanaya ama iska jeexsanaya jimkanaadiya just to accept 7 saas ku xidhan candle-kan marka hadda xirmay waxa ku xidhan no wick at the top wax wick amale laakiin maxaan u jeednaa inuu 4 hour candle wali furan yahay marka uu iska aaminayna waxaan dhahaynaa farax ka bixi hadduu trade entry ku soo noqdo manage garan doona waxayna haysanaa $300 waa 3% maxayna haysanaa 4% plus halkan hataa basal qati arrinta halkan ka qiimaha halkan lagu ogaada wastareerka ma haynaa waa 460 kaarmo ma ku markii garan saynu 500 kun ka dhimo u sameeyay ismaye SLK-nu entryga geynaa partial in xirana maadaama waxaynu waday 0.5 log ay yahay 0.5 kaliya u yahay okay waxaan samaynaynaa hadii aad baqdo waxa sameyn kartaa trades baan tagayaa trades markaan tago pending baan tagayaa iyo orderka from market and pending waxaan dhahay horta marka hore saadar SLK entry waa doqoniin ninkayga waxa soo lacag haysta in lagu soo laabto oo laga qaato SLK entry ma geeyo sidoo kale waxaan dhahayaa wastareer suuq anaba ka adkaaday horta 50% eh 50% waa $300 3% waxa 3% ga xaray soo maaha laba mid soo geeyay hadda suuq in 0.25 lotka ii ordaya ama 0.27 lotka ii ordaya uu socdo ilaa target fiigato iyo inuu soo noqdo hadduu socdo ka suuq isaasan ku baasiya account hadduu igu soo noqdaan targetkii maanta oo isniin ah talaada iyo targetkii shalay وسنين هاي لا صور حتى بلاد واحد يتارجت جمعة يتارجت في خميس أفر تارجت بكتشوجا 4% يحدوا أي خير صفا مرة دام 4% كحب أفر تعيشان تريني ما لك سنة تارجت في 1% يعني فرح بقايا عندها يا هذا شو الأمر شيء عندها نسوق طبعاً ويكلي ونتشيا إنه كل شيء هاي ويكلي كلية ماشى إنه كبقى إنه protection تسوى إن TB إنه اللي بيحلكم وكله سوى السامية weekly clean candle بحالك week حالك إنه clean candle حالك إنه clean candle لكن زوم كأفراد كل شيء protection كلا تبيجن إنتنا جاي some protections كلا وحالك مش هكشيكين this area أنا بعمل هذا سب عن كبقي ترف ومركو ترف سعودو left area but like we don't know we be doonaa bal waxa dhaca laakiin inta aan wax kala sameyn traffic ay sii weydin waxa dhaxaysa sababta aan sideynay maxay sababta aan sideynay waxa weeye suuqani hadii musi kala u eegno uu soo socday loo samaystay uu tagay hay soo samaystay kadib halkan la soo tirtiray this area kaana baa xigtay garay oo wuxuu ku xirnaa kaana information xataa kaana weekly weekend ay hadda ku jimay talaada maanta maray weekly ka horeeyay doojo ku xirnay doojana waxaan maqaanaa inuu reversal back yahay marka 80% suuqaas bayda inuu ku socdo bay rajaynayna haddii daily eegno waxaan u jeednaa daily waxaan markii u horeysay lahaa ka affected warbayden usbuucan ama usbuucyadan waxay iman doontaa this area marka laga area waa ka baxnay weliba aad waxaan wax maayna lotka aad u yareeyay oo marka aan lotka account u yahay $10,000 lotka saxda ah waa lot hal laakiin SL-ka oo aad ugu badnaa oo aan ka baqay retracement ama retest baan u yahay haddii SL-ka uu noqon lahaa 20 probably lot halka waa saari lahaa walaatan marka lot hal lagu dhifto waxa weeye $400 ina khasaara indaas ma kan $400 baan fursad gareeyay marka la sii waxa dhaca wasiideena farahan ka qaadana wadaan inteen ka qaadanay SL-ka intriga dhignay waxa dhacna suuqa iska soo waxa we don't care soo tigtigare ama soo xilliga number soo xilligii New York Open NY Open lama mid NY Open in looga faa'iideysto in suuqan
هذا كان left rejection is left and this left rejection bracket 17 18 40 in the before NY open waxaan oo la soo ceshay suuqa oo ilaa entryga ni keeno hada $400 weyn haysan $400 ma khamaari karno السؤال و 4% أكون في 6% 7% مريا marka bal waxay 1 hour kin eegana hadii 1 hour kan uu soo test gareeyay this area next 1 hour hayga jeliyo iska hayna laakiin hadii ay test gareeyaan for this area 1808 lowgiisa ay ku xirmaan waa isaga baxayna suuqa mid kale oo sameeynaa waxaan sameeynaa SLK modified hayna SLK hindeelina ama uu ka fikirin wala qodoor meelaha ka xiran soo noqdo $200 buu qaadanaya $400 ee socota $400 ee halkan socota routiinka $400 200 ka mid ah inoo socdana dee malaha wax kale inoo socdo halkaas uu tagay candle-kani rejected okay candle-ka lowgiis waa in la ilaasho intaan aad waa in la respect gareeyo hadii la rabo la socdo intuu jabi toosan noqdo don't care mara duba inuu yahay strong rejection haddeer maxaan karnaa talo si what happens maxaan karnaa for our cash flow trust me halkan maxaa afeer for waxaan suuqaas dul reject gareeyay this area uu ka reject gareeyay 1814 buu ka reject gareeyay exactly meesha aan rejection ku sheegay intuu taabtay uu ka reject gareeyay hadal kale ee aan yiri hadii aad xasuusatid ama si fiican ila socotay wuxuu ahaa weekly-ga markaynu joognay this weekly markaynu joognay waxaan yiri the only problematic area aynu ka baqayno waxa weeye area-dan ma aha waa clean kii horreeyay waa clean kii ka soo horreeyay adeer waa clean area this multiple rejections baa jira OTB-gan intaan la gaarin baa rejectionno badan jiraan marka maybe in halka kasoo jirtay baa dhacday waa kasoo jirtay we don't care like always waxaan samayn doonaa haddeer inaga marka safaa'id baynu nahay in candle-kaas uu soo socdo oo entryga ina kaga saaro SL-ka meesha ina ka saaro oo kale ka saaro marka markasta waxaynu haysanaa 4% afar trade gaini 4% aynu haysanaa imagine haddii halkaa loo halkeena oo full uga soo geli yahay markuu marayo 200 buu ku dhufto wixii la ka rabay xataa kor baynu dhaafay gumbar baa laga helay loo marka always maskaxda fiican u shaqeyso sababta anigu 2000 ama halka aan halka u geli waayo wax kale maaha waxaa kaale kan soo reject gareyn karaa xilliga aan bayda u galeynay waxay in salaad subaxa oo suuq volume badan male gold ma xilooynay volume u badan leeyahay xilliga NY open waxaan isiri amu retestiga ku doqonayba oo aad ku raftaa kadibna isagoo means uu haya oo lamid waxaas furmaan in yar uu take a force sameeyo kadibna uu kor u soco marka taas waa la u yareeyay anyway that matter waxaan haysanaa 4% plus bin haysanaa xilligan marna waxa weeye 6 bisha waxaan trade soo bilownay 1 bisha 2 cisho waxa ku jira sabti iyo axad weekend afar cisho oo trade gareynay 4.6% plus ana wadna okay discipline trade is fiican bravo saacad aynu sutno laakiin waxaan eegidana badan inay akoomada iska baasin oo ay akoomadu way hawl badan yihiin adigoo wax yar u jira baa wixii wareerinaysa haddii laakiin goorta aad wareerinaysa wax kale maaha waa xilliga aad over trade garaysid ama over risk garaysid ama markasta trade iska qaad maalinta 1 or 2 qaado riskiga galaysa 2% aan noqdo inay maalinta risk badan baynu galay taasna khalad aynu sameynay bay ahayd 4%-ga hadda iyo tii maalinta haddaan ka qaadan trade hadda inta ka sameynay maaha 4% ka badan waayo mainly in ka soo saaray trade waxaan ka sameynay BL haddaan tagno profit ama loss waxaan ka sameynay $250 oo balaas ay $300 oo balaas ah $700 5% ka sameynay dii hore waxaan ka sameynay $300 waa 8% maxaa marka ina waalay
waxayna waalid muxuu ah waxay rabaa waxay first day bin dropping galay oo waxaan galay $120 ilaa $800 $120 waa caadi it doesn't matter laakiin kana khal aha kana complete mistake ah kan waa winbu inuu aha $100 waa 3% 3% 2% inta marka isku daro waa 8% marka aan ka jaro marka 4% aan la isgareeyay waa waxay noqonaysaa marka 4% inuu aha exactly haddii aad rabtid inaa eegtid muxuu ahaaye excelka iyo inta bib ah khasaarta ama faa'iideen oo kuwan bib speed walba sida loo xisaabiyo waa taqaanaa waxaa la xisaabinayaa 24 bib way halkaasi halkan waa 54 bib halkan waa 30 bib oo balasa halkan waa 100 bib oo qaada loo haday gal lahayn oo reeri wax ka banaankeena oo lahaay 109 bib bay kan ka dambeeyna waxaan ka helay 78 bib okay niyay that's okay hada aan qofin meesha lagu garaacay okay maxaa tala bal inaynu sugno in suuqan retest uu area xilliga entryga ma aha laakiin waa xilli aynu iska daawanayna saacada 15kii waxay maraysaa la waa New York balixi makhna meelaha inay tahay golden ee halkaas maraya waxaan dir soo saday waxa loo yaqaan markasta move weyn u dhaco move weyn ba ka daba dhaca marka gold waa la faxa in gold area ka tago adag area aad ugu noqnoqda marka ma dhihi karaa waa retest halkaas rejection bisi waa 4 hour candle key uu isro doorti ku xidhan okay based on my knowledge daily candle kan wuu xirmaya next daily inuu week hoose soo saaro horta daily candle kan xirmo kuma day karno waxaan eegnaa 4 hour candle kan soo sameeyay hoos buu aaday wana ku horeeyay weli salbu ku socdaa haddeer xirmo 4 hour candle kan 4 hour candle kan soo xirmay maxay tahay macnaheedu waa daily candle ki waa xirmay laakiin daily candle waxa ku xirmay wuxuu ku xirmay above these rejections ka korkooda ku xirmay and that's good news but news wanaagsan in buy ku socon doono at the same time rejection baa halkaa jira marka 4 hour kaas in door sugana haddii marka aan bending daho buy stop bandhiganaya xilligan trigger maaha laakiin kanaan qaadanayo waa swing trade caadada huruuda ah waa buy stop 1797 baan buy dhigtay kd-geedana waxaan dhigtay this area 100 bib excelkana waxaan dhigay this area haddii halkaa bayda inoo jabsado candle up to in areadan respected weli halkan ay fiican laakiin 4% ka sameeyna trade am kursi kare all 4% maybe worse kayn karna okay وما تكرني الله ترى حدو هاي أشياء يوصلون نقطة ما هم كمرة يكيس أقصد بقولان دقيقة من خسارة فاير ما تكرني مركزت سوق ما حكتك أنت أتسمين كسر أنت اللي أما كبر إن خسارة كسرين دكوا هاي هذه مركزت على خير وحكمت كمية لشر وتوهم إنه أسأل كان عندي إنه بحاول إن أنا أكون كنونيكات الحين كو or something news ama waxa weeye flash wuxuu hadii jira aan isalkaas aqoon heli taqaan midhigan laakiin 1 hour iyo 4 hour ka wisi fiican ugu manage gareen hadii 4 hour intuu inoo jabso ba inoo noqo 4 hour ka sal in firaxin maxay soo inay 50% xirin ama 70% hadda ka soo nideen inta ka okay 4 hour baan joogaa xilliga aan joogo waa saq dhexe annaga waxay noo tahay 12 habeenimo marka ay iyaga u tahay waxay noo tahay inaga kowdii labadii meelaha xogaa ay loo saxda ku horeeyna oo loo yeeno tahay waxay leeyahay 4 hour ka ma sha Allah okay buy stop taydii uu furay toos buu soo wallahi dad baa istii doona waxa weeye malaha charteska waxa ku jira xogaa qiyaama qofka meeshii ay doonaan ku garanaya ay soo to gaar ilaahay ku dhaartay wallahi just waa clear knowledge aqoon حد ويي تريركاسي هدي أن إجنو waxa uu sameynay halkan ala jabsaday this area waa strong area inay suuqa hayso suuqa inta haysay suuqa inta haysay
halkaas eeg waa lahay kow waa xilima waa 16 June bay 20 June 22 June 23 June 24 June halkan goor laga rejecti garay 2 July haddana bay 4 July 5 July 6 July waa la jabsaday waa lagu soo hortesti gareeyay looji bay helay looji waxay naqaanaa in reversal yahay kadibna buy stop bay dhigana weekska dushooda in this area oo dhan la bixiyay markaa rabna okay problem marka wuxuu candlekan ii socda oo u jeedaa profit fiican buu hayaa profit fiican buu hayaa mid baa saynaya marka SLK way waxa raadtirka inaan ku baasiyo 10% ku gudbiyo aan rabay inuu partial marabo gacanta iga dhicin waxaan rabaa modify SL kan soo jeedo SL waxa keenay candlekan lowgiisa 1793 baan keenay oo 43 dib oo 230 domains haddii uu soo noqday fan SL iga dhaco 200 khasaraya iyo 7 okay halka iska yareen ka xadhi karaan ima daabal rumaysi balas fiican yahay aan 10 minutes kasta iska seexdo oo soo kala labadii waa 5 subaxnimo xilliga salaad aan tukanayni salaad oo tukanoo soo noqonay rejection soo sameeyay quraan bas ka akhriso soo eegtay rejection ku sameeyay oo si eegtay uu yara socday waxa tooni waxa iska soo afartii markay tahay inaa maxay noo tahay waxay noo tahay 7 subaxnimo xilliga shaqada hadda shaqada aadaysa haddii arday tahay ardayda okay waxaan dhahaynaa candle kan 4 hour kan furmay arto macaan mid baa ka rabo hal mid haduu noo sameeyo will be okay halkaas markuu candlekaas ka furmo waxaan rabaa horta inuu candle fiican oo xoogan u noqdo laakiin shuruud buu candle ku leeyahay waa inuu low soo samaysto lowgiisa waa in imbalance tixgeli imbalance waa meesha trade gala sababta SL entryga u dhigay waa inuu saa inoo lahaa lowgan uu candlekan soo sameeyay ilaa xibaan ogolahay inuu yimaado waxaan ogolahay inuu entryga yimaado sababtoo ah haddii aan lower time frame ku eego wuxuu noqonayaa break and retest casharada break and retest haddaad soo fahantay ardayow waa kan muxuu noqonayaa intuu soo dhaco candlekan eeg aadna soo hortestay waxaad moodaa in hore loo testay for outcome testiga la sameeyo laakiin haddii halkaas soo area soo dhaafo adeeru by the valid ma almost valid ma jirto marka for out ku noqonaya ana termi baa sugay midku soo sameeyay oo entry yimi waa inuu hadda noqdo ana u taag oo kaas it's pure knowledge sax waa aqoon waa ma noqday marka waxaan sameynayaa waa retest waa break intan area la jabsaday waa la soo test garay hadda waa continuation ma ku sugeynaa okay continuation kana marka caadi waan uga trade gareynayaa xilligeedii ma aha aan trade ka qaadan jiray laakiin fursadaas aan arkay waxaan sameynayaa highska markuu jabinayo maybe ina entry ku darsado oo aan buy ka sii eegto Simulation 4forex aad u achieve okay ayda laakiin halkan aan rabaa inaan trade ka qaato this area round ka qaato oo loo xalaala $200 waayo waxaan aad ugu raagay ma xamar ya toodi bisha soo laakiin iska soo terminate ka saxir okay terminate ka todobadii mar saa todobadiina waa inaga 10 subaxnimo inoo tahay waa London Open xarfeenaya inuu week hoose soo samaysato London Open because it's also so high demand activity bank delay I'm not case yeah based on the why momentum ka aan jeedo waa bullish hada momentum ki jeedo maybe in a risk fi angash profit na aan ka riskiga trade ka hadda ii socda ee profit ka aan waxaan gelinayaa profit kiisa baan risk gelinayaa let's see waxa dhacay waxaan rabaa candleka marka waxaan ka rabaa 20 dib meelaha SLka meelaha na geeyay okay
waa risk laakiin trade-kaas further rejection baa jira marka sababta hadda trade-ka u qaatay wax kale ma aha momentum waa inagu soo sharaxnay momentum waa maxay momentum waxa weeye suuqu jihada uu ku socdo waa momentum noqonaya wixii suuqa daray suuqa xisaabinaya marka waxaan rabaa inuu weekgan ii buuxiyo kadibna uu weekga kale rejection ka tago si aan u xidho trade-kay okay sababtaan u qaateen xilliga aynu joogno waa London Open waa 7 inaga 10 subaxnimo inoo ah marka London Open maadaama uu New York Asian session ama Asian Open ay soo sameeyeen all of this work halkan la jabsaday Asiankii la soo tirtiray London waa inay yiri noo sii let's see waxa dhaca riski weyn dalay trading is about taking a risk as I did I wasn't expecting the feeling like maybe no I don't mind settlements like why okay I'm okay for it like 6% marayna 3% oo soo noqotay higher time frame keenay iska joogna 4 hour keenay wala handayna 4 hour soo wixii laga saaray wala noqday laga saaray okay waa retesting this area 15 minutes eegno waa retesting halkan la soo retesting garay kadibna bulsho loo xin maybe second chance ma siin karaa trade waxay la jibin bye bye kiri second chance si waayo mainstream way ka shay aan raalliga ahayn laakiin yaade maxaa ka kala duw dad maralaha shaqana soo raallihan shaqan وقراءة أوكي وقتي يدوش واي مر وحادي تحصل هذا ترى الحياة بقول كيدا بوا كان بقول إيو لا بقول بيها يا آخر بقول أسوي بقول هذا أنا هو 8% مركا waxaan soo waday hal ahaansha waqtiga marka kale galay suuqan waxaan gold iyo suuq wala marka ka qaadan kara marka qaadan basidaas bushir baan rabaa kor yiri koriid 9% حبسنت يا كويس عشان انتين يعني اللي قاعد وكان ايه first break even يقل كان كلام break even كذي كان مركي سعودة أو محرنا نسوي كفكرنا عشان هاي قاعد على الشبي maybe خلاص أنا يا إلا this area إلا سعودة وحسين يا ترى كم حرية جديد سبب كنا محسوين يا partial waxay 50% xiriya marka 0.2 bay ordiyay oo kii aan hoosta ka soo qaatay TV-ga meeshan ka qaadaya TV-ga meeshan ka qaad 9% aan marnay statement kaasna iska xirn waan dhahay next statement hay u jabiyay oo soo noqday intaas 9.6 kan suuqa ka dhigay 10% ay dhameystir 1% hawl badan bay ahayd malaha coming back ugu soo noqo 10%. Let's clear everything to access. Okay. This is pure knowledge. I swear to God, this is pure knowledge. وأقول حوي واضحة. هيك وحين كسوق على الناي هل كاسين خجل لا يستوب لجناي إنه ورشين يمكن كاندلس كان موجود. صارت حلقة واحدة سويت شفتي وبهرفي rejection area. This whole area rejection. ميلان هورلو جيتري. Okay. هذين كنا قندون. ترى سكين. أكون كحين تقعدني كن تبون كنا دور وحين نجارسيني. تونكني كوي تونكن ويكون دور بالله ترى بتسوق علينا اكتئامه سمين سي challenge مرحلة الحمد لله ونسمعنا هلكم حتى يا statistics فانتيا أكون كي هلك عن كأنك كريني أحوال يعني سودوما شو ما تشتو فرتينا في نين كلا بحاجوس وصاري مركا أمينا في عنتها أدو قف اللي وحنا حوي أدي استجابني حاجوس صارية halkan Liverpool soo timia Leicester ay u qeeyay okay xabjina wuxuu ku leeyahay
faa'iidada aad gaadhay faa'iidada aad ma garanaysaa samaysay taasi kala weeyno wixii aan sameeyo aan la iskaraynay waxaan faa'iidnay profit ama loss all closed trades waa $1,004 faa'iida ama khasaara halka aan rabo waatan meesha aan aadka u rabo waatan labadaas aan aad u rabo absolute drawdown iyo maximum drawdown labada ugu macquulsan waa war innaga akoonkeena maalintii u badnayd waxaan drawdown galnay $390 waa maalintii koowaad trade koowaad kowdii bisha ahaa maximum drawdown waxa weeye equity-ga maxaad ka hor usmartay 10 ma ku bilownay $400 lacag ku dhoway ka hoos martay oo 3.9% marka inaga drawdown waxa inoo ahaa labadaas inoo ahaa drawdown intaas ayna halka trade bayna wixii kala wada u dhaxay hal trade oo loss garaynay waa jira oo isagana $200 bayna ka qaatay laakiin second chance bayna siin chance labo ka tafi mar waxa jirta ay jihada ku saxantay laakiin trade ka khaldan inaga marka dhaweyto marka jihada way saxnayd oo bartii uu tagay oo inaga maraad ka faa'iideysanay laakiin trade ka inaga khaldan okay waxaan kaloo halkan gross profitka guud $1,680 baynu sameynay waxaynu khasaarnay $600 baynu khasaarnay $600 baynu khasaarnay halka waxaad ujeedaa 3 meelood marka $1,600 la dhaho 3 tira haddaan ka qaadano 2 ka mid win dhaxaynay oo win inoo ahaa xabadna waa khasaar oo marka lagu dhaho $600 baa khasaartay waxaanu faa'iiday $1,600 waa almost waa 60% win rate miya halkaas marka xaseena waxaan ku dhufanaa kunkan ku dhufanaa zeroga laba zero u saar laba u qaybi waa $300 laba u qaybi waa 8 laba u qaybi waa 4 laba u qaybi waa $150 laba u qaybi waa 2 laba u qaybi waa 25 laba u qaybi waa 35 marka 35% weyn khasaarey 35% ina weyn faa'iido marka sida darteed win rate-keenu waa 75% saas ku saaraysa inta khasaartay hal qaybinaysa inta faa'iido 100 baad ku fanaysa baraq factor-keenu 2.47 waa inta hadda sheegaynay almost waa 3 meelood oo 4 marka 3 meelood u qaybino waa 2 meelood iyo badh number of trades tradeadan qaatay waa 10 macnaha wuxuu sheegayaa number of closed trades anoo hal trade soo qaatay waxaan xirayay mar partial 8% markasta xidhi trade isagu dhahaya marka 10 trade baynu qaadanay 4 ka mid faa'iidnay 6 ka midna waa khasaar sidaas oo kale waxa ku saari kartaa iyadana percentage ka faa'iidada ku saari kartaa waxaan dhahaynaa 4 baynu khasaar 10 ka trade waxaan ku dhufanayaa 100 si aan percentage-kiga u soo helo eberka handai eberka usah 4 ku dhufo waa 60% waxaan ka wadaa 40 lagu dhuftaa 40% waa loss-kayga maxaa haray marka boqolkii hadda 40 loss ay yahay 60 baa haray isagana waxaan dhahayaa 6 oo hoos dhigay 10 oo lagu dhuftay 100 eberka usah hal waa asal doorshe 60 ku dhufaa 60% hada bali waadin 60% am winning 40% am losing still in somebody compromise imisa cishay ugu qaatay 7 cisho kaliya ugu qaatay isbuucii hore ka qaatay khamiis iyo jimcaha iyo isbuucii dambe okay halkan waxaan ka sii analyze gareynayaa iyadana this area last profit trade u badna aan faa'iido oo faa'iido u badan ka qabsay 40% ka qabtay trade u badna khasaarna $700 baa khasaar weli ma fiil gareyn kartaa akoon hadii ay risk management taqaani average profit-kaaga analysis ka trade kastaan qaato analysis waxaan faa'iiday 280 faa'iiday trade kastaan khasaarana analysis waxa khasaaray -170 ma khasaaray markasta faa'iido waa inay badato si aad profitable consistency trade u noqoto
خسارة إنه يراو سياب حوي profitable ونقطة أجي long trades تردد عن باي وقلاي واسدي تردد عن سلف وقلاي نوالله أنا فكرت كيني يا بارشة الذي أنت حراي وتردد عن قاتل مبني أفرشن بهاي هذا سي ودنا كبير درون كنس كدحنا وأستنتج سو واحدة ما يستلم وأفتهم يفنن challenge هنا العجز كل شيء بهالد بهالكلام على كستر هل سميش عمله سيرش مجلسة خلت كجيش من القرن يسا مالها عترك السعودي وترك مكات وحلاك إن ترك عم حام وقال ويساس سني وقرية هوس وقرية شورنا المحيار ما كتب خلت كمان عشان ما لا تقول إيمان almost 1 year حتى سميش ما 1 year يعني 6 months وعند هاي التلفون short trades والله long trades كنا سديد long trades وسديد ده وحن بدي شن كمل عن وين النقطة short trades كنا وحوين النقطة هل مركز سديد بالتريل long حتى شن بدي خسارة واسدة أبي لو بدي التريل short تجاها maximum consecutive win ها maximum consecutive win حوي مركز عن win تريل قاتوا win تريل كان قاتوا win لو win بسكحي أنت win اسكحي يعني أنت تقولوا تريل اسكحي صدق تريل win أبى اسكحي أنت لوس اسكحي هنا ولا تريل مركز لوس كاسكحي يقوم شيء وحوي تريل كمجرد أوري وقتين بعشر حدنا هدنا يعني ولا حدنا هل كان شلوا وقت ما ترجع برافق كأوبر أنا سمي اسكحي في حاجة يبغى لوس إيجاد حجلين وسديد ورفض ده في الدور في العجحة خسارة أبداً أو كان ليجد حجلنا كان سبح بقول يسجل $4 commission measurement و clear knowledge way. أوكي market bending كان فيه هذا market ما history كان فيه history كل كان سووا وحنبها يا وحكان سكرينيا trade speed. قبل مركز رئيسة وحياله تريس عن قاتي وحيو شيء يا كلوس باي وحلي باي سلب وحاس order هذي وكون طبعا order بسميه أو باي ها كلوس باشياء وحيالها حل جوي هالكن وقتي وحنصاب لون هالك أو جدا كوني بشة إلا يتدور بشة وتدور عشان 7 training days فانكو بس يكون losses كان قاعدين وجدا مؤفر leverage مننا نحين لا over leverage مننا نحين لو هالمن قاعدين مصير وينتج أو مصير وينتج لكن ما كان لضم وينتج كقاطع ومر على أركي إن أبشون تيجين أكليب إيتها مروح ترى ست أبغى قناع أحسن تجليه بقول في ستاشن ترى وهو بيقول سندونتا مركز قوم وينتج كقاطع بريس كميش عن كجلاء ومري أسل كميش عن دكتور تي بي لمبر كان دكتور بدنا تي بي بنقول all أسل بنقول ترى بالأسل ما نقال ولي أسل بنقول يبدو من يحدوده في الكن مرة هوي برفض أمر سمح برفضها محل صحة أوكي أنت بأن فعلنا أم خسارنا كوميشن يصير ماشي مو تشري أوكي بالانسي محوها أكونك بالانسي وتبتي محوها يفتيم وكذا بالانسي أكونك حقول مري حقيقة ترى كم مرة أكونك حقول تي كومنتي open the user partial user حيالها أوكي أنت هذا فلقين أنت هروح حبك كون لابانيو waxaan aad u rabaa meeshan la dhaho meeshan aan rabaa $100 ilaa $188 waa hal maalin ma ofatargan suuq waa ka baxay waxa no istidaan inta ka saaray aad ma fiirin loo soo ku dhufanaya hadii kale waan ka tagay waxaan sameeyay $323 waxaan qaatay maalintii labaad ee labadii bish qiyaamo jiro halka ugu jiro labadii bish waa faa'iido haddana waa isaga baxay afartii iyo shantii suuq waxaan malaynayaa maxay ahayd ha afartii shantii waxay ahayd sabti iyo axad suuq u trade ma jirin afartii iyo shantii ha meesha ma jirto lixdii bisha aan trade qaatay afartii bish trade ma qaadan lixdii bishaan trade qaatay waa kan waa 00 barsha waxaan kala baxnay $300 balaasan ka qaatay lixdii bisha $200 balaasan ka qaatay waa kii swing trade ka ahaa todobadii bisha trade meena qaadan isla todobadii bisha waxaynu qaadanay mines hal mines aynu qaadanay oo la tagnay oo wuxuu ahaa kii aynu ku sii daraynay trade-ka aynu markuu noo socday dambeeyay $700 mines aynu khasarnay 9 bid oo 1 minute lot ku ahaa
وهالكي دب وحوي واشنطن دولار وهكذا ترك وينات وفائدنا لا بقول يصدم صح بقول بس كنا قبلنا مركز بين سوقين أو بس أي قبلنا بين سوقين وحين قنيان بس كنا قبلنا هدين سوقين وحين قنيان داقة بندق كون شيء وهاي this one بعد حبيبس وانت صدق بعض انت صدق بعض فانا لا كارو almost حاجة هاي they traded هاي إن مالت طبعا كدب لا تندب أسواق كيك بس أول أسبوع عدن نان كيك تو بقلب هذا هلي ويرانا كنت وبنانا بقلب بس عليها بدنا لكن بقلب مركز الله خلق بشتيت وكن دول هذا اللي توم بفتين واتوم دول هيرين سرور ذاك بيت عشان بقلب دول النت بين إيز waxaan khasaaray bibiska 24 bib loogeey continue covid halka waxa weeye 75 halka ay khasaaraha tan khasaaraha ay gashay 20 ka dhigay 30 ka dhigay 95 bib baan khasaaray total bibs lost waa 95 bib oo iyaga khaladaadka kii hore khaladka anaga lahayn kii dambe laakiin probability waa oo jahli ma aaday laakiin xogaa season 2 aadan dadku ka soo saaray وجهين هذا بيع تستوى قاعدة كريسو. أوكي. halkan 30 bit of faa'iido ah waxa ku dartaa 10 ka 109 bit waa 139 78 baka dhig 140 iyo 80 220 220 ka ku dar 240 labadaas waa labada hor xagga hore aan ka 240 180 ka ku dar 280 saashadii 240 340 440 بالبينات boqolkiiba 60 waxa eegin boqolkiiba 60 baraf weyn ah eegin boqolkiiba waxa dhigta 420 ka shay saasha boqolba ka jirta 420 usbuuca haysata innaga akoonkeena xogaa excelka inuu ku weynaa aan risk managementga bisayna waxay ahayd in $3,200 aynu qaban waayo halkay bid $10 weyn ku helay kana 900 ku khasaaray markay inta loo shaqno okay at the end of the day waxaan ku soo gabagabeynayaa all of this information waxaan ku soo gabagabeynayaa dambeyn halka waxa aan ku qaadanay waxay ahaayeen deep knowledge chat ifrana ma jirin qolada sidii doonto bishii 7 ku tiray gareeyna garanaysa adiga inta charts ka soo qaad beer aad tiray gareysid oo si fiican aad u garanaysid hadii aad taariikhan xad tiray euro USD tiray haddaan ku geeyo ku euro USD simulation ka ku sameeyo back testing live oo aan cidna kala gabanay it will be so hard gold one today bishii xaalii $1 gareeyay laakiin it's not the same gold excel ka meesha dhigatay iyo tb meesha dhigatay waxa weeye qaab iyo cilmi ku tagaan haddii aad cilmi garanaysid haddii inaad suuqan hore u aragtay in hore ku soo maray ma xasuusan doonto waayo suuq waa candleska tabti 2012 iyo 2015 u soconayay hadda 2020 u soconay meesha uu ka rajay tigaynta 2012 ka rajay everything waxa weeye waa sabab history iyo aqoon waxaan la history repeat itself suuqa inta aan sameeyay oo maanta inta aan halka ku sharaxay oo wax badan adig kaaga filan risk management kaaga filan tahay trading kaaga filan tahay simulation kaaga filan tahay projections in loo fiirsado kaaga filan tahay trading dhexe aynu qaadanaynay aynu soo dhiganay line commercial projection 1794 ahay oo jeed sabab u taabtay u soo jeediyay dad halkaas sel limit dhigta oo ilaa tilkii 200 bilaha u soo raac لكن هذا استعداد مسامح سلم يباي لم يحيى مو بالنقانين أو always راح نكتر كلامنا clear candle stick أما clear price action قال لنا إنه ما واحترن لنا سوق أمين نصار هل ترن لنا سوق أمين نصار واحد indicator أمين نصار just support your resistance your candle stick candle كنت شيء لو مصوصم هاي يمشي لو مرس في تجري سوي تراك أوكي candle كم سميني high you lower high مسمى anso intaasi knowledge kan ku saabsanay marka dhammaan knowledge ka oo advanced leh oo beginner leh oo intermediate leh oo expert leh waan insha Allah September waxaan wada soo gelin doonaa
website-keena hagarlaaweacademy oo aan marka ardayda ku bari doono wax sida aan u sameeyo qofka waxa laga yaabaa inuu dhaho warniyo intana malaha igu filan haddaan intaa eego supportiga eego resistance-ka eego waad samayn kartaa ku diidi maayo you can do it laakiin waxa weeye it will take you too long waqti badan ay kaa qaadan waqti badan aan kaa lumay inaan live stream free ah u naadkahay baan eeganayaa oo live stream-kigaas igu filan it's not what we need pure knowledge we need in candle wixii yahay la fahmo waayo dadka badanaa sababta suuqa ugu khasaarayaan waxaan fahansan wax candle u yahay kaloo aan fahansan waxa weeye risk management waad ujeeday markasta aynu trade qaadanayno waxaynu eegaynaa asalkeena xisaabinayno riskiga qaar aynu iska manage garayno waa jiray inkastoo badanaa tabi aynaan manage garayn aynan bixin oo laba trade iswiin ahaayeen laba trade ay ahaayeen trade iska yaryar wuxuu 4-5 trade aynu qaadanay laakiin I will try every week inaan haddii ilaahay ka dhigo I will do my best inaan haddii eeb ka dhigo hal stream soo galo oo marka aan ku sharaxayo simulationka ama hal simulation ku qaadanayo akoonkeena $7,000 buu ahaa saasaynu sameyn $100,000 furan kartaa waa baatin kartaa hadda waxaad samayn kartaa intaa boos sii saartid akoonkaaga in aad muxuu ahay aad hadhow caawa kale aad sii wadid aniga waxaa jiray akoon aan hadda shalay ii dhammaaday waxaan kasoo qaaday $10,000 waxaan marinayay 64,000 without violation hatta I think journalkii waan save gareeyay journalkan wuxuu ku fiican yahay aan ilaaway waad save garaysan kartaa waxaad tagaysaa statistics waxaad tagaysaa export to excel iyo tab ugu dejinaya qofka arta u diri kartaa waa kuwan statistics waxa waa journal aan save gareeyay journalkaas I don't think waxaan ku save documentiga aan ku save gareeyay waan raadin doonaa waan idin soo wadaagi doonaa waxyaalahan oo dhan iyo kuwa badan oo aan folderka ka soo guurayba waan sameeyaa statisticska waan daabacanaysaa statisticska soo daabacanaysaa markaad daabacato waxaad samaynaysaa save files that's already exist magac bedel fulay inta kama tutuugaasaan ku qoray okay marka daacatid simulationka waa xidhaysaa kolka aad xidhid waxaad samaynaysaa statistics export waxaad samaynaysaa hadhow waad soo eegi kartaa intaas talaba qaatay intaas khasaartay maxay waxaas iscaananaysaa is eegaysaa waxay khalaadkaaga eegaysaa waxyaalaha aad ma garanaysaa mise eegaysaa saaxiibka loo eegi kartaa dhigata aniga statistics iyo ka been laguma sheegi karo tradekan haddii uu maximum loss to 5% dhaaf adeeg iyo ana trade sidee trade kugu qabtaa akoonkaaga 5% minus كوما قبل كرو هذا تريد كان كوما قبل كرو وأقول وان كتا 3-4% وخسارة كتا تريد لكن ما في ولد كرين كت بدنا دنيتها هي سميان يسوفرنا يعني فني challenge يسوفرنا فني challenge أكون كقول يسوفر صاحبها يعني let's trade هذا تريد كريني تأخذ تريد كريني يا معلم تيم ملي target ملي جيداتن هافتارج بحتارج اللهم أنا بضبط هالك أيضا بيسا وعكو قرن number of traders per day أتوقع قابية number of traders per day معنى تتكلم عن قاتل كم بدني إنه ما تروح كست أو دعاء لبطل روح كم بدني عن قاتل بوضع كتوان 95% لو تروح بدني بعض هذا بيشدن قبل لا تن إشادن ترى لا تن يقول بشيء إن الله ترى هل مالين laga yaabo inaan sax kala qaato ama aanan baqaalin batay 95% waa ku dhaqmaa waxa jira riski maalintii maalintii anigoo kale waxa ii qoran khasaara 3% haddii suuqa 3% aan ku khasaaro am out hadda tarafka ugu horeeyay riskigii baan 390 3.9% ku dhawaad baa khasaaray خلط وفعها عن سمي إن ماشى عن أسر كدجاني يلطخي عن سوق قياس مرة راح يساوي إن عن 3% كوسبيس كرايو وتمكن دور مخيسي وصح والله دور بأسر هذه هي سكوت $2 3% محكون نقطة كل شيء بقعد بكون نقطة مرة 3% واحد بدن ما أنتينا خسارة ويعرف 3% خسارة هذا نجارو أم أوت وكم حياة ما أنتي احتمال دونية واحد شيء ريسك بيرتاح kasta inaan tagana riski sameeyo marka lama baan sameeyaa in aan
riski beerdhig maanta riski aan haysta halka ku riski gareeyo waa dhacda sida hadda aan soo intee ka horeeyay oo kale iyo maye inaan riski beerdhiga tiriga kala qaybsado oo uu bulshada uu mujif ka dhigo haddaba uu riski gareeyo oo asal golf aan khasaaro waxaan dhahayaa you have another chance after one chance for ku haraysa gariyo marka hadigdigi inay saajidina oo tahay oo jeeda markasta iska tsiisa markasta kana baqan kay jabin markasta sababka asuusan ee ritis treatment dadkiisa waa khasbaysa marka loo baax waxa weeye 1% ga haray waxaad dhigaysaa you are putting yourself your mind the best position to win meesha ugu fiican ee laga guuleysan karo waa dhigaysaa therefore waa guuleysanaysaa waayo kii hore baa khasaartay hal trade ku haray meesha ugu fiican baa istaagaysaa okay risk per trade waa 3% waxa kaloo isna jira trade session xilli aan trade gareeyo oo u dhaxeeya haddaan iska soo koobo 2 PM ilaa 4 galabnimo xilligaasina waa xilli saacada ku dhexeysa website-ku aad baan u fahmin iska khayr badan baan aan maraynayaa website-ku meel kasta aan tago laba talaabo jira albaabka markaan furo albaabka igu xiga website oo adinka oo kale markay marayso casarka waan soo tukada toonro haddii trade marka ku jirteena nothing waxba trade-ka xataa iska wareegiyay riskigan yareeya SLTD waan dhigaa waan ka tagaa 10 daqiiqo marka trade-ku meesha tago way adag tahay waayo maadaama badanna trade kan rabo ku trade gareeya riskigan yareeya saasaan kaga tagaa marka oo si waxyaalahaas jira marka trading balan waxa loo waa leedahay trading shipping waa inaan leedahay waxyaalo badan waa inaan leedahay anyway waxyaalahaas oo dhan waxaan ku discover gareyn doonaa oo aan ku sheegi doonaa haddii aad ogolaado hagarlaaweacademy marka cid kasta oo jecel inay wax barato ama ay bahalkan meel ka gaadho waxaan rajaynaynaa inay nagala soo qayb galaan emailkii ahaa cusub farino soo dir farino badan baa dib soo gaaray maalin live trade aan sameynay baa dad badan farino soo direen noo soo fur noo dedeji qaar lahaa waxyaalahaas oo ugu talina qaar ay microphone ka xun marka microphone ka hagaajin doona insha Allah microphone baa inoo maqan dawladda laga keenay insha Allah xilliga la keenana waa xilligan baan shaqo gali doona oo website-ka academy-da waa la dhisay website qurux badan marnaa soo dhiso qofku available inuu lacagtiisa ku bixiyo sahalkiisa aan credit card iyo waxyaalaha u baahnay marka muhiimada waxa weeye in wax la barto dhalinyarada in waxbaran meesha isaga ama haddii eeba ka dhigo muxuu ahaaye intaas ku soo gabagabeynaya halkan waxa uga jeedaa waa pure knowledge adag tahay inaad aragtid qof strategies inta account ku furo simulation kaas oo kala ama trading la tago dhahaya inta dib aan khasaaray inta aan faa'iido ii qof oo ixsaab adiga u jeeda live trading waa suuqana u jeeda hadda weli kugu noqdo ما علم كفن ما علم كفن واحد كستر دعواتين كجهن هل كان مركين جوجنو أن يختصر بريفيو أما بريفيوس بعد ما علم ده training is disabled for this simulation واليوم في مشهور رئيس أنا قصة شيء أو إن شيء كلويدي لكن next بار وندي كه سو هذا ترمي توصل لغاية بروح سيستم يا أوكي هذا ترى 10 minute كي 10 minute baan arkayaa saddexdii barkii saddexdii ugu celi galabnimo oo hadii aad aragtay meeshu aaday waxa sameeyaa hadda oo kale trading kan oo kale soo ma jeedin inuu bay aaday waa jaraya halka kan markuu marayaan bay galay sidii ugu dhaxnay sacab waaniga badi marka u jeeda 10% ma qaadan oo pure knowledge waxa way insha Allah raxmaan waxaan inaan hore ka sii socono simulation halkaas aan ku dhameynaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh